جوجنا وعيلك عيل مودان قبرك مودان كما رجي وقاعدينك سبدا وقاس فرحان وجدان ما شاء الله رجي مودان دريسكيس انتي لا dhimatay inta intii hore كل ilaahay haw naxariisto janna firdawsa Allah ka waraabiyo nubtooda Allah dhaaf intii uu dhalay intii gashay intaba Allah haw naxariisto Allah barakeeyo intaas in ducaw nimanka yagaan saacad oo halkaan joogo awoowo uu yahay sida يعورنا لوسيارتا كان مركي حوغا لا كولولادو oo dadku ku waayo oo xaaladdu kululaato intaas intii la yimaado ariga inta lagu bireeyo leesugu yimaado geedahan iyo dhulkan aad aragteen baa lagu ducaystaa ilaahay baa la bariyaa waa ku roob baa ilaahay lagu siiyo waa lagu barwaaqo doonta lagu aqriyo oo karaamadiisa saas weey inta joogtaan oo la degan baa og inta gabdho dadka maqal bay ku tahay dadka anagu waxaan nahay ku koray wadanka oo degan sacad weey sidaas ayaa loogu ducaystaa waa dadku ka soo farxamay si awliye ilaahay weeye ummadii hore oo khayrka lahayd weeye sidaas weeye sida baawoowa sidaas aan ugu ducaysanaa السلام عليكم ورحمة الله يدكنا كسر دوادا أنت أسمانت دتك سوية والماء ومودان ما أنت واحد بالضوء لومن وأجادين يصعد وكل وضع الشيء هذا سيدا سنقول عينينا أولنا وأود عين شرني أنقول وين شوقني ولا سي شوق الدونا خير بدن الله سي واهر وهذا سيه الرئيسي وضياش سيدا يقول هذا دهر وين بالقدس أو بربري أو باباي marka haddana insha Allah kariim waa la cusboonaysiin doona waxaan waa laga qaadi doona waa la sii dhisi doona haddii kun intaasna ku soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh taariikhda aan meeshaan ka hayno oo ka hayno wali ilaahay waa aan haynaa aniga maya aabahay iyo sheekh dadku oo leeyahay jirtay waagii hore oo leeyahay meeshaan suuquna laas bay lahayd laastaas jiidaashkii waa markii arrintu ay ribato yaa anugu hadda iyadoo lagu bilaynay soo gaar taariikhda waa laga sheekay yaa halkaas intaas inta isku hareeraya lagu bilayn jiray ariga looda iyo geed ilaahay noo bari waa la oran jiray ilaahay baa wax keenay cid kale wax ma keentay halkaas barwaaqada hadda kuna lagu horan jiray أنت سيد عيش مركي بيو قلان عيش مبي وحترجي مركي هين وطعمار وحمد ترجي تاريخ عن كهين ولي إلهي وعن وبرينا إلهي نحريست إنه كورنا أول أنونا إن شاء الله أولادي سبحان هاي إلهي وعن كبرينا إن عن هدلون عاصي إلهي نقدر أنت أسبان إن شاء الله كشوا أبينها يا وبالله يسوفي. الله شيء قوي تاريخ sida odayaashii ugu horeeyay u sheegeen hadda maanta kor taagana waa qabrigii awoowe waxay la tahay dhowr qarni baa ka soo wareegtay xilliga uu halkan ku geeriyooday dadka qaarna galbeed buu aaday dadna waa dad carradii ku haray dadkan sacadka marka dadka carradii ku haray ahaadeen oo deegaankii ku haray xilli hore sida loo sheegay dahar weyn baa meesha ka dhisnaa jiray daharkii waa baaba'ay waqtiyo qalafsan baan la soo maray
marka hadda waxa weeye ilaahay jannada ka waraabiyo warasadiisana allah barakeeyo waxa marka la rabaa warasadiisii hadday galbeed jiraan iyo deegaamada aan joogaanba in siyaaro weyntii la isugu yimaado qabriga si fiican loo nuuro oo mawlac laga dhiso lagu tuko masaajid laga dhiso ayaa la rabaa masaajidka waa kuwa xaggaas ku yaalla mawlac laga sameeyaa la rabaa marka sidaas awgeed waxaa la rabaa haddii ilaahay raalli ka dhigo in mar la isugu yimaado oo qabriga si fiican loo nuuro oo awoowo laga ducaysto laga karaamo qaato loo qurbaan akhriyo sidii awalba la yeeli jiray awalba waa lagu ducaysan jiray qurbaanka waa loo akhri jiray laakiin in la ballaariyaa la rabaa oo dadka galbeed jira iyo dadka carradan deegaanka jooga ay mar kulana isku aqoonsadaan inay durriyaddii iyo awlaaddiisa ay yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim maanta meeshaan waxaa noogu taariikheeyey raggii sacad ee ku dhashay halkan awoobayaashooda awoowayaashood ka soo gaareen awoo amuudana oo la xuso maanta meeshaan waxaa nala jooga sacad maxamed amuudaan muqaabil ogaadeen absame waa kanaa suldaankoodii baa jooga waxaa jooga makaahiil maxamed amuudaan ogaadeen absame suldaankii baa jooga iyo ogaaskii maanta waxay u yimaadeen waa awoowahood weligood ma ayan xusin mana ay arki jireen halkaas galbeeday jireen maanta waxaad ku soo dhowaateen noocadan waa awowihii laga yimid dhacaankiisa saas laydin sheegay oo taariikhdaas ayuu leeyahay ku soo dhowaada waxaad gaarsiin lahayd in ilmo amuudanna meeshaas ka iraahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah runtii waa maalin farxad leh waa maalin farxad leh waa maalin maxaan ku yidhaahdaa ilmo amuudaal kii galbeed jiray iyo kii bari joogayba ay isu yimaadeen runtiina waxaa xaqiiqo ah in yacni mataqaanaa iyagu ay amuudaan waalidkiina dhalay ay nooga roon yihiin oo ay siyaaran hayaan oo ay aqoonsan hayaan oo ay dul taagan yihiin oo ilaahay u baryayeen wardiga u bixinayaan runtii waxa weeye labadayada kuwa iyaga galbeed annaga galbeed ka nimid iyo iyaga bari iyo kuwa bari waxaa xaqiiqa inay iyagu naga maaragtay maxaan ku idhahdaayey wanaagsan yihiin oo naga baarisan yihiin sababtoo ah qabriga awgood bay dul joogaan wardiga u akhriyaan aqoonsan yihiin dul taagan yihiin waxaa kaloo ku soo dhoweynayaan walaaladood oo maaragtay ay kala maqnaayeen oo galbeed ka jiray runtiina aynan maaragtay hadda ka hor isugu imaanin bay ku soo dhoweeyeen maaragtay maxaan ku yidhaahdaa ogana sheekaynayaan taariikhda uu leeyahay awoow taariikhda uu leeyahay oga sheekaynayaan mahad baana u naqaynaa iyaga maadaama oy maaragtay awowgaayo ay maxaan ku dhahdaa na bareen qabrigiisii oo yacni inaan maaragtay isku facnahay ay maaragtay tuseen taasaan maaragtay ayaan oogu mahadnaqaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantihiin farxad weyn bay noo tahay iyo taariikh cusub oon barannayba maanta maaragtay inaanu joogno qabrigii awow amuudaan waxay ka marakacaysaa gabigii sayidkii ahaa waa in amuudaan haddii loo abtirinayo marka in halkaa laga yimid dadkuna wada dhashay wax badan oo la sheegay in xaqiiqa yihiin bay caddaynaysaa aad baan uga mahad celinaynaa sacad halkan gacanta ku hayay oo sida odayaasha hor sheegeen xusayey annagana waxaa weeye insha allah oo ku soo biirayna haddoo caddayntii baan aragnaa iyo qabriga hadduu joognaa ilaahay ha u naxariisto qabrigana ha u noqoto intii ka shaqaysay ilaahay ka siiyo marka dee cashar fiican bay noo tahay aad baad u mahadsantihiin suldaan qorane soo dhowow iyo odayaasha kale ka dhexeeya بسم الله الرحمن الرحيم كل يادي أدريس رجع على أبدهن بعد ما نفرح سنة إن صوب قناة قبل جاوبينه وهذا تاريخ وهي تاريخ منه نقول صوبت كنا كنا وامبرنا أنا كنا وامبرنا وحنا لا هاي أستانتن هذا ماشين الله وحي أبوري دونتا استعيل iyo in dadku ogaadaan inay wada dhasheen meel ka wada yimaadeen taas bay tilmaan u tahay waxaan jeclahay inuu maanta halkan aan isku numeeyay qabrigan dul taaganay meeshan ka nimid inay keeni karto oo keeni doonto in dadkanu sii xoogaystaan niyadda iyo farxadda iyo ehelkii wada dhalashada sii xoojin doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة
رغبة من الساجدين ولا ليال قبل أن تلجون الله نحرس قبل أن تلجون الله نحرس جنة الفردوس الله كورا ورسول وحلو قد ذلك ودعاء جنة الله كورا جنة الله كورا أنت أصير علينا ها قصته أنت أصير عشان ها قصته ولا ليال إلهي بسكان كاني الحمد لله تلك كان فوقا بارك كان تجي يا أنت ماشي أنت ما هاد بيلاله أنت فيها يصير أن تصير تاريخ بيلاله الحمد لله الحمد لله وقم هبقينا أنت أكلنا واسيق جالسين هنا إن شاء الله خير وضوء بكرة هودا وضوء بكرة لكن ما يبلغ بكرة هودا سيدات أبوه ولا زيارني أنا سوق عشانه السجور قبلنا مالك سوور كاس جالسينه أنت عصاينا حتى وصل waxaa noo haray si wada jira mashaakilkii wakaas inaan daarihii la sheegay aan ka dhisno meeshan oo wada jira aan iskugu nimaadno annagoo u dhan موافق سلطان مرادكنا سريد الله كدي مرادكنا سريد الله كدي مرادكنا سريد الله كدي اللهم صل على محمد جاء النور حديث سيف كري ما سيف كري سيف كري kani waa kaasa waa qabrigii muudaan baa ka dareernay ilaa waxaan ka nimid ilaa gaalkacyo waa soo booqanay qabrigii abu muudaan rag oo dhalay oo dhiiggiisa gacankiisa aan ku soo dhaweynay maasha Allah waxaan rajeynayaa in siyaartan ay ballaarato oo laga dhigo mid waqti leh oo time leh la isugu yimaado insha Allah saasaan ka rajeynayaa